gudoomiye ku-xigeenka degmada Togwa Jaale mudane Mursal Nuux Ismaan oo shir jiraad ku qabta xafiiskiisa ayaa jawaab adag siiyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro oo maalin dhaweyto sheegay in madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu iscasilo halka uu madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Axmed Siiraayana uu sheegay in maxkamadda soo taago haddaba hadalkaasi ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta gudoomiye ku-xigeenka degmada Togwa Jaale mudane Mursal Nuux Ismaan oo gaashaanka ku dhuftay waxaana uu sheegay in xisbiga mucaaradka ee wadani ay kaambeen garayso dawladda Soomaaliya waa sida uu hadalka u dhigay gudoomiye ku-xigeenka degmada Togwa Jaale arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa kamid ah hadaladiisii waxaan doonayaa halkan inaan laba kalmadood ka ilaahdo gudoomiyaha xisbiga wadani oo maalin dhaweyd ka hadlayay maalgashiga DB World iyo horumarka u soo kordhay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kaasoo ku eedeynayay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynihii ka horreeyay aabihii horumarka yidhi hala soo taago sharciga khiyaamo qaran bay galeen waxaan u arkaa Cabdiraxmaan Ciro inuu ku jahwareeray doorashadii dhacday oo jub weyn gaadhay taasaan anagu aaminsanahay waxa weeye khalkhalba ayaa ku dhacay doorashadana waxa weeye dadka waa la kala badiyaa weli hadda wuxuu u haystaa Cabdiraxmaan Ciro in lagu jiro campaignkii iyo doorashadii ilaa imika wuxuu u haystaa in muxuu ahaayay aan weli hadda aan doorashadii lagu kala adkaan Cabdiraxmaan ku abshir 80,000 oo cod baa lagaaga badiyay waad dhacday waxa weeyaan inaad madaxda qaranka xagxagatina ma qurux badna annagu waxaan ku aragnaa inaad aduu tahay qaran dumis ka soo horjeeda horumarka iyo maalgashiga iyo da'yarta loo abuurayo mashaariicda waxa kula mid ah gudoomiyaha xisbiga UCID injineer Faysal Cali Waraabe waa nin taageersan horumarka iyo maalgashiga waa kula mid waa ninkii nakaabaray ee bulshada iyo Ciro isbari weey horta ninkaasi maanta isagii baa dafiraysa waxa kule war isla xisho qarankaaga u tug waxa weeye xisbi iyo galeela oo raadbarada iyad gudoomiye u tahay ma cuntanid oo ma cunsanid in laga badiyay waxaan leenahay war hadimada ka daa qaranka haddii kale oo ka waantoon weedo waxa weeye talaabo sharciga waafaqsan ayaa laga qaadi doonaa inta madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland talaabooyinka fiican ee horumareed ee maalgashiyeed ee uu ku dhaqaaqay madaxweyne uu garab taaganahay garabkaaga uu taaganahay waxa weeye shacbi baa ku doortay ha u joojinin shakhsi waxa weeye door cad la kala adkaaday oo lagu kala tagay oo 100,000 oo cod lagu kala tagay inuu maalin walba intuu halkaas soo taago uu yooyootmo ayaan darro u tahay sumcad darro u tahay xisbiga taagta darana wadani waxaan leenahay war ka waantoobo waxaas maalin walba marka aynu isqabsano dawladda taagta taran ee koonfurta ee ay inaga mar walba ina leeyihiin ma jirtaan oo horumarkeeni iyo iskaashigeeni iyo ay ka soo horjeedaan waxa weeye markaste oo xisbiga kulmiye iyo xukuumaduba ay ka hadasho uu ka hadlo xisbiga mucaaradka injineer Faysal Cali Waraabe ay isku dhinacayeen weli maalin kaliya lama arag gudoomiyaha xisbiga wadani oo u jawaabaya dawladda taagta daran ee koonfurta markaste iyagu la macyahay iyagu taageeraya waxaan u aragnaa xisbiga wadani in laga campaign gareeyo oo kharashkiisa laga bixiyo koonfurta taasaan ognahay oo xaqiiqo ah waxa weeye hadday ciidan qaran dumis tahay waxaan cadeynayaa inuu xisbiga wadani u yahay qaran dumis waayo markaste
وعدوغاغا أيو تاغيريا maalinkeeya kama hadlayo uma jawaabayo ninkaale ma jirtaan wax jirimatiidi waxa weeye kawaan tuuman leenahay xisbiga gudoomiyaha xisbiga wadani iyo doorashadii ku jaawareeray waxaan leenahay waa la doogayaan la tacaarunay ayaan leenahay xukuumadda taageer waxa weeye roolkaaga qaado rool baad leedahay waxa weeye horumarka iyo maalgashiga soo dhaweeyo taageer خضر عبد الله ورباهين تمدح بنان دقمة تقوى شاليه